wasaaradda tamarta ee kheyraadka biyaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyadoo kaashanaysa hay'adda caalamiga ah UNHCR ayaa waxa ay magaalada Baydhabo xarunta gobolka Bay ka hirgelisay laba ceel biyood ay xaafado ka mid ah magaalada Baydhabo xarunta gobolka Bay ceelashaas oo loogu talagalay inay biyo ay ka helaan barakacayaasha ku sugan ee guud ahaan deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya qaasatan magaalada Baydhabo xarunta gobolka Bay dukumeentiyada xeelka lagu kala wareegayay ayaa waxa UNHCR ay dukumeentiyo ay ku wareejisay wasiirka xogeenka wasaaradda tamarta ee kheyraadka biyaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdullaahi Isa Ganay isagoona ku wareejiyay dukumeentiyada gudoomiyaha degmada Baydhabo goobta xil wareejinta ayaa waxa goobjooga ka ahaa wasiiro ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya uu ka mid yahay wasiirka wasaaradda maareynta masiibooyinka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed agaasimaha guud ee madaxtooyada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ugu horeyn waxa goobtaasi ka hadlay dadkan u mahad celiyay wasiirka xogeenka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdullaahi Isa Ganay sidoo kale isaguna waxa goobtaasi ka hadlay gudoomiyaha degmada Baydhabo Axmed Macalin Xasan Biikoole ayadoon u mahad celiyay hay'adda UNHCR lama ceel oo qadaaqdi dadka IDB oo deegaanka oo ku faa'iideysadaan inuu biyo ku helaan ka dhibaataysanayeen dadka qaxootiyaalka oo barakacayaalka sayti oo wasaaradda iyo UNHCR ku wada shaqeeyaan intii muddadii ceelka sayti la qoday oo ku guuleysadeen inay dadkaas ku faa'iideystaan marka ciidanka mahanaga UNHCR oo in qabatay lamadaas ceel oo nin dhisti oo haddana oo qalab iyo dhamaystirtay oo ku faa'iideysadaan bulshada magaalada Baydhabo iyo qaxootiyaal marka ciidanka mahanaga UNHCR may kale oo ku codsadaan inay haalanka kaan lamada ciidanka kaan insha Allah ciidanka badan oo ku faa'iideysan deegaanada Koonfur Galbeed insha Allah sallallahu alayhi rasuulillah sallallahu alayhi sayyidina nabiyina Muhammad marka hore way salaamay wasiirka maareynta masiibooyinka iyo wasaaradda biyo wasiirka hogaansha iyo agaasimaha guud agaasimaha wasaaradda madaxtooyada iyo gobernatooraha iyo maxaa la yiraahdaa commissionka iyo nimankii hawsha qabaday oo UNHCR gacanta ka jeysatay ya mahadnaga bilaaran jeediyay waan ka faraxsanaa ceelasha sideeba waxa weeye nidaamkii dawliga way hayeen ceelasha madal wareejiyo bulshada ku wareejiyo community ku wareejiyo way la shaqeeyaan degmada mas'uuliyadaas degmada iska leh marka degmadana gaar ahaan dowladda hoose ya controllers way waday taliye in dowladda hoose taasoo dowladda hoose ya waday taliyaha way la ka fadhiisin inuu si control ceelashaas marka halawsan si dhaqamayaan si wakiilnimada ciidanka dowladda hoose dowladeedkan arag jarin eediyad way mahad balaaran ka jeediyay UNHCR wayna meel raak rajay alwareejin kadib hay'adda UNHCR ayaa waxa ay kulan ay la qaadatay qaar ka tirsan wasiirada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya uu ka mid yahay wasiirka wasaaradda qorsheynta wasiirka wasaaradda maareynta masiibooyinka wasiirka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed kulankan oo saaday albaabada u xirnaa ayaa waxa ajandihii ka soo baxay saxaafadda la wadaagay Cabdiqaadir Cali Maxamed oo ah gudoomiyaha guud ee barakacayaasha deegaanada Koonfur Galbeed hay'adda guddiga qaxootiga iyo barakacayaasha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed dadka ku qaybgalay oo ku mid hayna wasiirka qorsheynta wasiirka maareynta masiibooyinka gudoomiyaha gobolka agaasimaha madaxtooyada magaalada Baydhabo iyo mas'uuliyiin ka tirsan hay'adda qaxootiga shirkaasoo kordhacay hay geedka oo hay timaalan loo wareejiyay lama ceel oo hay'adda qodi oo la kamaal galiyay midna bonkaw midna bayxaw lamadaas ceel wariyeedii kula shaqeeyay qaybta dowladda commissionka hay'adda qaxootiga iyo wasaaradda biyaha iyo tamarta taasoo geedka lamadii ceel xir wareejintii wadiidi wasaaraddiyo la ka wareejiyay hay'adda qaramada midoobay la ka wareejiyay wasaaradda biyaha la ka wareejiyay meeyarka ama duqa magaalada Baydhabo duqana wali ka wareejiyay guddiga lama xil saaray oo lamada ceel qorseedii howlwadaag ku tirsan guddigaas oo ka kooban haween iyo dhalinyaro iyo odayaal
hay-adda UNHCR ayaa waxa ay si weyn ay gacan ugu geysanaysaa horumarinta bulshada ku dhaqan ee deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya iyadoona inta badan ay diiradda ay saarayso baahiyaha ka jira ee barakacayaasha ku sugan ee deegaanada Koonfur Galbeed. Ibraahim Macalimo, Raadiyaha TV-ga Dowlad Goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug, magaalada Baydhabo.